qaybta doorada halkan waa meeshii dhan maacuuntii iyo wixii dhan uu kusoo fidayaa khasaaro soo gaaday aniga dadka xamar weyn oo ganacsiga digaaga shaqo ganacsada digaagayga meesha markaas dabkii soo gaaday digaagayga kulli maanta waa kala arran meel hadda kuma sheego laba xabba kaliya gacan ku hay intii ka wada kala arran meel aan wax ku sheeg male wax fiiro gaar u yeesho wixii burburay laakiin hadda waxay u baahan tahay dawladda inaan jiingadahaas loo sameeyo nidaam iyo dariiqyo iyo korontadii waxoo dhan. daawadayaal waxaan ku suganahay suuqa weyn ee degmada Xamarweyne halkani waxaa ka kacay dab xooggan oo geystay khasaare kala duwan weli lama soo warin khasaare nafeed oo ka dhashay dabkani ka kacay iyadoo haatan tiimka gurmadka ee degdega ee dabdamisku ay wadaan dadaalada ay ku dimin lahaayeen dabkani geystay khasaare kala duwan. haddaba qaar ka mid ah dadkii ku sugnaa markii uu dabka kacayay ayaa la hadalnay waxay inoo sheegeen in khasaare xooggan uu ka dhashay dabkii caawa ee ka kacay suuqani Xamarweyne. khasaaro soo gaaday aniga dadka xamar weyn oo ganacsiga digaaga shaqo ganacsada digaagayga meesha markaas dabkii soo gaaday digaagayga kulli maanta waa kala arran meel hadda kuma sheego laba xabba kaliya gacan ku hay intii ka wada kala arran meel aan wax ku sheeg male 100 xabba door ayaa had laba xabba ay weerartay intii kale ay kalbataan door aan gada aniga in ganacsataan dooranka ganacsadan aniga laba xabba ka intii kale waa meeliga baa ma og waa leey ku dhintaan waxay ka waa la kala qaat waxaan meel ma ig sheeg marka waxaan leeyahay aniga maarta dadka oo muslimiinta waxaan leeyahay in maarta li soo saarsan leeyahay dooran leey qalad dadmashadii waa noo gurmadeen saldhiga waa noo gurmaday degmadii cidna kama maqno dawladda qaybaheeda oo kala duwan oo dhan way nala joogaan in yaroo balanbala ayaa hadda xoogaa wax ka socdaan khasaaro waa badan yahay laakiin alxamdulilah anaga waxaan u joognaa khayr iyo shar baan u joognaa diyaar baan u nahay cilada sideeda waxa waaye maaragtay waxay ka timaadaa korontay ka timaadaa teedii kale waxa waaye maaragtay balanbalooyinka jingadaha balanbalooyinka iyo korontadii is dul saaran waxaasay ka kacdaa sida badan taasna waxay u baahan tahay in laga baarandego oo maamulkii dawladda asna uu maaragtay wax fiiro gaar u yeesho wixii burburay laakiin hadda waxay u baahan tahay dawladda inaan jiingadahaas loo sameeyo nidaam iyo dariiqyo iyo korontadii waxoo dhan si dadka ayada u xil saaran cooleeda si ay u badbaadiso ay ku badbaadaan. walaalayaalow meeshii aan wax ku gadanaynay ayaa dab naga galay dabkii ilaa hadda waa nagu socdaa wax gargaar oo xoog leh oo naga damiyana waa la'nahay dawladda waxaan ka codsanaynaa inay noo gargaaraan dad masaakiin aan nahay meeshaan ku noolan ciyaal ku noolaysanayni oo aan ku noolayn baa eber naga noqotay waxna nin curyaanana waxna ma qaadi karo wax meeshaan ka qaadan karo ma jiraan waxay meesha ku waabeen wax damiyana waa laha ilaa hadda asalaam intaas inaad noo gurbataan baanu idinkula hadlaynaa sidaasaanu wax idinku weydiisanaynaa dukaanka waa naga soo gaara haddaad dad islaama tihiin oo ummadda ilaahigay aad tihiin naga soo gaar dabka dab baana helay dabna asxaan ma leh carradii dhan eberow naga dhigay wax ayaga hanteeda meesha aan ku lahayn oo dadka ciyaalka aan ku masruufsanayn eber bay naga noqotay assalaamu calaykum waraxmatullahi dab yar ayaa Xamarweyne ka kacay uniyo wuxuu baabiyey kawaanka wixii dhankan ka ahay bigeed wixii geeskan ka ahayn uu baabiyey alxamdulillah anaga dukaanka kawaanka geeskiisa dukaamada dad kula hayaan anay alxamdulillah dadna qaar way la baxeen dad qaar way dhumeen alxamdulillah wax dhibaato ma qabno laakiin dad badan u baabiyey xoolo badan ku baabay wuxuu ilaahay keenay waa alxamdulillah isqaanay leedahay waniya intaas aan hadda aan ogahay dabkina hadda waaba joogna goobjoog oo naanay ilaa hadda ku socda alxamdulillah niyo wuxuu ilaahay keenay waana ku shukrinay alxamdulillah niyo may wax khasaarna fadmoogi laakiin khasaarahan tiyadeed waa ujeedaa ma badbaadin kawaanka wixii geeskan ka xigay iyo wixii big geeskan ka xigay marwaas dhabarkiisa dab wixii guriye ahay waxyaabo badan dab waa dab xoogiis waa dareemi kartaa hadda maadaama aan ku mashquulsanahay alaabtii raritaankeeda hadda jaanis inaan helo inaan meesha ku soo fiiraan arkay ilaa hadda ku socda laakiin xooli zaay soo dhanka wuxuu aaday oo dhankaasi wuxuu aaday baalka maxallaha ii sheegeen dhanka kawaanka uu aaday marka alxamdulillah aniga alaabtii waa badbaadiyey wax way dhimo wuxuu khasaaray alxamdulillah wax dhib ma qabo inta ilaahay ummadda dhib ku gaareen ilaahay badbaadiyey alxamdulillah rabbil caalamiin inta islaam horta inta islaam dadku qabsadeen Allah u gargaaro annaga alaabteena meesha oo waxaan deganeen kawaanka geeskiisaan deganeen waxa la xadi kara hal xadaan wixii la daldalkan hal daldasho waxa badbaadsan kara waa badbaadsanay banaanka dhoobanay gobolkii marka dambe imaad hormuud Allah qeyrsi hormuud waa imaaday hadda dabkiina maxaa liya gobolka waa yimid gudurmadkan hadda waa yimid alxamdulillah rabbil caalamiin waxa aragnaa laakiin dabka yaa badan nama soo marin marka alxamdulillah rabbil caalamiin qasaaro waa dhacay inta muslim ilaah ugu dhaqdhacay bedel qeyb Allah si annagana hantideena waa kala baxnay meel geesan wixii dhimi lahaana waa dhumen wixii badbaadsan kara badbaadsan alxamdulillah rabbil caalamiin qasaaraha wuxuu gaaray saaxiibadayda aniga hadda guri dukaankayga anigu maanta jimcaha wuu furnaa
anoo furan oo dad oo beex ku jiro meel yar dabka bilaantana Allah ku cararnay wiil aan qaraabanahay meeshiis markaa tagayna oo yiraahdo markaa saan u galayna Buqaari furihi wuu watay korontada waa qabsatay waana gubtay laakiin saacid bini aadan wax qaban karta ma laakiin Ilaahay wax noo qaban karo meeshan maanta waa lagu baaba'ay qasaaro badan meeshan ka dhashan faanteen mud badan oo ala hasan wuxuu aruursanaa meesha ku baaba'ay caaba horta Ilaahay xaga Ilaahay meel kale ka siin faanteen laakiin gobolka noo imaaday hormuud noo imaatay insha Allah si nidaam ay u maayeen damiskii wili waa socdaa shaqadii wali waa socotaa insha Allah umad u soo duceey bas ducadiina u baahan tahay u soo duceey bas Ilaahay sabr ima ala ka sii waxada Xuseen Maxamed Sigane Danan TV Muqdisho ogeysiis farxadan haddii aad joogtid dalalka Yurub xawaalada Galaxy Transfer waxa ay free ka dhigtay dhammaan lacagaha lagu diro Premier Wallet iyadoo ku gaaraysa daqiiqado gudahood ka faa'iideyso fursadan oo lacagaha ugu dir Premier Wallet ehelkaaga iyo dadka jecesha